warar soo baxaya ayaa sheegaya in xilalka laga qaaday taliyaasha ciidamada militariga booliiska iyo nabad sugidda isla markaana loo magacaabay xilalkaasi taliyaal cusub. General Daahir Aadan Cilmi Dhaqarshe taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa lagu waramaya in xilka laga qaaday iyo taliyaha ciidanka booliiska General Bashiir Cabdi Maxamed isla markaana xilalkaas la magacaabay. Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka ayaa sidoo kale laga qaaday xilka iyadoo la magacaabay abaanduulaha guud ee ciidamada qalabka sida oo loo magacaabay General horay u ahaa ama uga tirsanaa hay'adda sirdoonka qaranka isla markaana in muddo ku noolaa dalka Sacuudi Carabiya. Waxaa sidoo kale wararku ay sheegayaan markaasi in la magacaabay taliyaha hay'adda NISA isla markaana loo magacaabay General Isadiano oo markaasi horay ugu tartamay xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. inkastoo wararka wali la xaqiijin muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa la hadal hayay in isbedel lagu sameyn doono taliyaasha ciidamada taasoo looga gol leeyahay in wax uun isbedel ah ay markaasi ka dhaqan galaan xaaladda amniga dalka. inkastoo dhowr mar oo hore oo isbedelo lagu sameeyay taliyaasha ciidamada ay waxba ka soo naasacdaan.